muddo baa kala maqneen mar labaad ku soo dhawaada taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waan idin mahad celinaya ka soo qayb galka shirka jaraa'id oo mar walba aan ku wargelino dhammaan shacabka Soomaaliyeed howlgallada booliiska ciidamada amniga iyo meelihii marayaan waxaa si xawli u socda howlgalladii ay isla kaashanayeen shacabka iyo ciidamada qalabka sida dad badan waa la soo xiray intaas baa rabaa maanta inaan la wadaaga hay'adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraad taariikhda ahayd 26 bisha afraad 2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgal ka sameeyeen degmada Heliwaa sidoo kale hay'adaha amniga kaashanaya shacabka ee gacanta ku soo dhigay dhagar qabo xogtiisa la hayay oo ka dambeeyay dil loo geystay gudoomiye waaxeed ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana lagu soo wargeliyay meeshu jooga ninkaas baaristiina way socotaa isla degmadaas waxaa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada Xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabku ku soo wargeliyeen ciidamada xali saqdi dhaxa waxaa la soo qabtay 6 ruux oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka Weydow iyo agaarkiisa hay'adaha amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaas oo falal dhac ka geysanaya degmada Deyniile shacabkana la soo qabtay sidoo kale 9 saac subaxnimo haweenimo oo xalay hay'adaha amniga oo ka sameeynaayo howlgalo xaafadda Jamhuuriyadda degmada Kaaraan waxay ku soo qabtay waxay galeen gurigaas oo lagu iibiyay walxa maandooriya waxayna ka soo qabteen 9 jawaan oo maandooriya nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo ka mid tahay hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay'adaha amniga ku soo wargeliyaan wax walba amni dara ah ay ka shakiyaan iyagoo naga soo wici kara nambarkii awal shaacino mar labaadna hadda shaacinayno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliiska ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo siday ula shaqeeyaan hay'adaha amniga fariimaha ay noo soo direen ayaa noo suurtageliyay dhammaan howlgallada haddaan kor ku soo xusay iyo dadkii aan soo qabanay shacabka la'aantooda maanan soo qaban lahayn marka waxaan rabaa fursadan inaan ka faa'iideysto aan u mahad celinaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo siday ugu dhiirisan yihiin howlgallada ciidamada amniga ee wadaan iyo siday dawladnimada u daneynayaan hal warbixinta idin hay halkaas ay ku egtahay